aqlabiyada xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabley oo hore shirka jaraa'id ugu sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen maayarka degmada Gabley Shucayb Maxamed Muuse iyo ku-xigeenkiisa isla markaana maanta u balansanaa inay yeeshaan kalfadhi aan caadi ahayn oo ay maamuuska kaga xayuubinayaan maayarka iyo ku-xigeenkiisa ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen xafiiska barasaabka gobolka Gabley ku shaaciyay in codsi uga yimi xagga barasaabka gobolka Gabley awgeed ay fadhigoodii dib ugu dhigan ilaa maalinta Sabtida ah shirkan jaraa'id oo ay ka soo qayb galeen aqlabiyada xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabley ayaa waxa ku wehelinayay barasaabka gobolka Gabley Mustafa Cabdi Shiine iyo ku-xigeenkiisa Cali Cabdi Cabdullaahi Cali Case ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay xildhibaan Cali Maxamed Sheekh Saleebaan Cali Cadde iyo xildhibaan Cali Axmed Yuusuf Cali Duldul oo ku hadlayay afka xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabley isla markaana ka warbixiyay sababta ay dib ugu dhigeen kalfadhigoodii ay maanta u balansanaayeen maalintii bisha ahayd 23 oo aan ku qabanay shir jaraa'id magaalada Hargeysa golaha deegaanka ee degmada Gabley 14 xubnood waxaan ballan ku qaadnay in maalinta bishu tahay 25ka maalinta lafteeda oo kalsoonidii kala noqonay oo aan taa ka soo celin doonin kalsoonidii oo kala noqonay mar labaad cadeyn waxa maanta ahayd ballanteedu inaan fadhiisano hoolkii dawladda hoose si aan maayar iyo maayar xigeenna u doorano xisaaniyada sida sharcigu nafarayana aan si toos ah uga qaado arinta markaan xalay dhan ka soo jeednay inuu saaka ballanteedu ahayd waxa ergan nabadgeliyo iyo inuu erga dawladda iyo annagaba dhexdhexaadiyo u dhaxgalay mudanaha maayar gudoomiyaha gobolka Gabley isagoo noo sheegay in wax alla wixii inaga xumaada wax degmada inaga xumaanayo dawladana codeer ku gaarsiinayo in sharciyada la dhowro oo sharciyada loo hogaansamo oo sharciyadu ay noqoto maalinta Sabtida annagoo waxaan waan ka aqbalay codsiga ergadiid waa gardiid waa la diid ergada islaamkana lama jiro xukuumadda waa la shaqeynaa waxaan codeer madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxaan leenahay horumarka dalkii kale laga qabtay Gableyna laga qabtay dib u dhac baan annaga nagu dhacay waa mahadsan labadii maayar ee naga horeeyay wax qabadkooduna waa wax muuqda sanad iyo 6 bilood baan joognay albaab rinji maanaan marin madaxweyne waxa meesha yaala waa deyn mar labaad baan ku sheegay waxaad xariga ka jirtay waa deyn dad leeyahay ee maaha waxaan soo iibinay beenwey deyntan la wareegna ayaan wali hadana lagu leeyay mushaarkii baan qaadanay shalay toole markaan anagu hadalay torture kaga soo baxo ama ku soo baxay annaguna waxaan ka shaqeynaa wixii wanaag ku imanayo ummadayada u dana doonista ummadayada aan ku shaqeynaa waanu aqbalay ergadii uu noola yimid barasaab waanu ku sharafnay sharciguna wuxuu noo oggolaa waxaan ku ilownay maadaama uu mas'uulkii gobolka ugu sareeyay inaan codsigiisa qaadano sugnana waan sugeynaa waanu qaadanaynaa waqtiga uu noo qabtay baan sugeynaa waxaanu leenahay war kuwina doortay adiga ku doortay baa shacayb uu joogay kuwa yareed magaalada dadka shiida leedahay kada magaaladana ma ahayn rabis iska gelino maalintii lagu dooranayna rabshadii ma dhicin maalinta maayarka cusub la dooranayna rabshadii dhici mayso dadkana inaan wax u qabano ayaa waajiba intaasi kadibna waxa hadalka qaatay barasaabka gobolka Gabley Mustafa Cabdi Shiine oo mahadnaqay sida ay xildhibaanadu ugu ajeebeen codsigoodan maanta sida xildhibaanadu sheegeen xalay toole saqdir ilaa labadii habeenimo waanu marna suuweyn marna isla joognay waxaan anigu ula tagay inay suugaan oo balantii iyaga iyo wasiirka arrimaha gudaha ka dhaxaysay oo ah inay sabtiga kulmaan sabtida tan ujeedada aan ula tagay waxa ay inta suugaan inay nala ilaaliyaan nabadgelyada oo xildhibaanadu iyaga loo soo doortay tan annaguna la soo magacaabay warqad baan ku nimid halka laakiin kuwii dalkan loo soo doortay deegaanka awaayaga mas'uuliyadda koowaadna iyaga saaran tahay inay nabadgelyada nala sugaan waxaan ka codsanay inay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay sugaan balantii wasiirka taana way naga aqbaleen waan ku maadsayn iyagoo ilaalinaya dantii dadkii soo doortay iyo degmadii iyo gobolkii loo soo doortay nabadgelyadiisii degmadii loo soo doortay nabadgelyadeeda iyagoo tixgelinaya runtii waa iga aqbaleen waan ku maadsayn see noo sharfeen waxaan ilaahay ka bareena uu sharaf iyo xiisu siiyo kulankii waxa loo qabtay imika fadhiga xildhibaanada Sabtida hadda waxaad maanta waxaad kulmi doontaan wasiirka marka maalinta rasmiga farsanay maanta haway anagu saan ku sheegay ku heshiinay iyaga iyo wasiirku balan Sabtida lahayd isfaam la'aan awoodeedna waa ta keentay in la isqancin waayo dabeedna nimanka arrinta ka biyadiida balanta qaabka u dhacday waxaan ku qanciyay wasiirkii Mustafa inay sugaan ilaa Sabtida is arkaan
dabeedna maanta go'aanka qaadaneen iyaga xusaysaa mid aniga yeelma si kastaba ha ahaatee shirkan jaraa'id ee xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabley ayaa ku soo beegmaya xilli dadweynaha ku dhaqan gobolka Gabley ay u dhagtaagayeen waxa ka soo bixi doona fadhigan aan caadiga ahayn ee maayarka xilka lagaga qaadayay ee maanta u balansanaayeen waa wariye Cabdikariin Maxamed Cadde qaamuuska TV-ga caalamiga ee Royal TV gobolka Gabley.